kulanti wanaagsan daawadayaasha ku soo dhawaada barnaamijkeena Bollywoodka iyo fanka maxaa cusub shanta filan ee maalintooda kuwaad lacagaha ugu badan soo xareeyeen iyo halka waa uu ka galay saddex arimood ayaa hormuud u ahaa burburkii mustaqbalka aktarka Govinda toddoba aktar oo Bollywoodka kuwaas oo ogolaaday inay sameeyaan doorka dumarka ah innaba caadi ma ahan muuqaalka laga soo bandhigay filimkii Lakshya Bambi Akshay Kumar iyagu celi ayaa ka dhacday shirkadda Yashraj Films oo markaan si cad ah u doonaysa inay sameeyaan qayb labaad filimkii waa fadlan haday tahay markii ugu horeysa na soo booqanayso fadlan subscribe saar channelka shanta filim maalintooda kuwaad lacagaha ugu badan soo xareeyeen iyo waa halkuu ka galay waxaa shalay 2 Oktoobar shaashadaha la saaray filimkii weynaa ee waa kaasoo ay iska leeyihiin shirkadda Yashraj Films waxaana director ka ah Sadad Ananda waxaana jilayaal ka ah Hrithik Roshan iyo Tiger Sharif filimkan waa ayaa shalay si waali ah ku furmay waxaana gudaha India ka keenay 5.5 karoor taasoo ka dhigtay inuu taariikh dhigo sidaasna ku noqdo filimkii lacagaha ugu badan abid soo xareeyay maalintiisa koowaad filimada ay leeyihiin shirkadda Bollywoodka asigoona jabiyay rikoorkii Tigers of Hindustan shanta filim ee maalintooda koowaad lacagaha ugu badan soo xareeyeen iyo mid kasta tiyaatarada la saaray number 1 waxa ku jira waa kaasoo keenay 5.5 karoor waxaan la saaray 3850 tiyaatar law waxa ku jira Tigers of Hindustan oo keenay 48.27 karoor waxaana la saaray 4700 tiyaatar number 3 waxa ku jira Bharat oo keenay 41.6 karoor waxaana la saaray 4650 tiyaatar number 4 waxa ku jira Bahubali The Conclusion oo keenay 40.7 karoor waxaana la saaray 3950 tiyaatar number 5 waxa ku jira Prem Ratan Bayo oo keenay 39.32 karoor waxaana la saaray 4200 tiyaatar saddex arimood ayaa hormuud u ahaa burburkii mustaqbalka aktarka Govinda waxa uu ka mid ahaa sagaashamaadkii aktarka lagu dambeeyay loon lagu jeclaa saddex arimood number 1 maan qof waqtiga doora waxa loo yaqaan sagaashankii King of Comedy isagoo sameeyay dhowr aflaamood oo hit ah laakiin markii dambe lagu halagalay flops midaasna waxa ka daran aktarkan waxa uu yahay shakhsi ugu dambeeyay ay yimaado goobta doobista filimka ay ka socoto waana mid mar walba ka soo daa waqtigii la balamiyay number 2 dagaalkii uu la galay director David Dhawan aflaamta badana ee guuleystay oo Govinda hogaamiye ka yahay waxa director ka ah David Dhawan kadib markii uu Govinda siyaasadda ka soo laabtay waxa uu la dagaalay director David Dhawan markaas oo Govinda uu bilaabay hoos u dhici ugu weynaa hada David Dhawan waxa uu Govinda ku badashtay wiilkiisa Faran Dhawan number 3 ma ahan qof xoog saara jirdhiska arrinka saddexaad ee Govinda dhulka la galay waa inuu aktarkan marna uu ku fikiray inuu xoog saara jirdhiska jimicsiga mar walba uu u muuqday mid isku dhexdhacay shan aktar oo Bollywoodka kuwaas oo galay inay sameeyaan doorka haweenka ah number 1 Ritesh muuqaalka timaha dheer bishimaha gaduudan iyo socodka Ritesh waxa la moodaa kaasoo ay ku qaldami karaan rag badan Ritesh ayaa doorkan ku sameeyay filimkii Apne Sabne number 2 Kamal Hassan kani waa MR perfectionist dhanka iyo Koonfur India isagoo sameeyay doorar kala duwan kaasoo si weyn loola cajabay aktarkan ayaa hadda ka hor waxa uu ogolaaday inuu shaashada filimka ku jiro door habeena isagoo doorkaas ku sameeyay filimkii Jaji 420 waana door lagu xasuusto aktarkan ilaa xilligan number 3 Shahid Kapoor filimkii Melengi Shahid Kapoor waxa uu ku sameeyay door weligiis aan lagu aqoonin isagoo jelay door habeenay ah taasoo leh timo gaagaaban waxna macquul ah dadka inaysan hore u arkin Shahid oo jelay doorka habeenka ah number 4 Amir Khan yaaba hilmaami kara doorkii weynaa Amir Khan ee classic ah dadka si weyn u xasuustaan Amir Khan ayaa heestii Doli dilko taasoo ku jirta filimkii Bazi sidoo kale Amir Khan ayaa mar kale jelay door habeenay ah isagoo xayeysiin u sameynaya shirkadda Coca-Cola number 5 hadda doonays inaad xasuusato aktarkan Govinda ee sameeyay doorka habeenay ah waxa marka ugu horeysa maskaxdaada ku soo dhacaya aktarka Govinda filimkiisii anti number 1 kaasoo ah door shactar oo classic ah sidoo kale Govinda ayaa doorkan oo kale waxa uu ku jilay filimkii Raja Babu igu celi ayaa ka dhacday shirkadda Yashraj Films oo markaan si cad u doonay inay qayb labaad ka sameeyaan filimkii waa cadaraha iyo awoodda filimka waxa la cajabay oo ammaan kala dul dhacay shakhsi walba oo fanka India ku aftirsada sidoo kale waxa filimkan uu qaaday hadalhaynta tiyaatarada iyo saxaafada dalka India Hrithik iyo Tiger filimkoodii kadib markii uu la yimid bilaabasho taariikhi ah waxa durba shirkadda filimka iska leh Yashraj ay go'aansatay inay qayb labaad ka sameeyaan mashruucan dadka dhan wada waalay waxana Yashraj Films ku fikiray xifaaltanka filimka inuu sii jiri doono
sidoo kale laga dhigi doono taxanaha caanka ah sida taxanahooda Doom kaasoo ah taxanaha ugu caansanaa shirkadda Bollywoodka waxaana fikirkan keenay madaxa shirkadda ninka lagu magacaabo Aditya Chopra